waxa shalay Hargeysa ka dhacay waxaa lagu tilmaami karaa dhoolatus qabiil baa lagu tilmaami karaa. Warbaritoole haddii doorashada layna kaga guuleysto oo aynu ku soo bixi weyno dadkani qabyaalad darteed ama qabiil darteed ma inoogu dhimanayaan. waa la arkaa, way muuqataa, waana caddahay inaa baritoole u dhiman doontaan qabyaalad, inaa u dhiman doontaan. maanta dalkeena Somaliland markaad eegto arki maysid qof u mudaharaadaya dantiisa, baahi isaga haysa uu dareemayo. arki maysid qof u mudaharaadaya oo leh war dalkii sixir barar baa ka jira ee dowladda aanu kula xisaabtanno. shacab dhalinyaro intay soo urursato dhahda war dalkan dhaqaale xumaa ka jirta ama shaqo la'aan baa ka jirtee dowladda cadaadis aan ku saarno siday dalka wax ugu qaban lahayd, arki maysid. laakiinse waxaad arkaysaa anigoo kale qurbaha ka tegaya, dalkan tegaya, xukuumaddan aflagaadeeyey, waxaan u geystay dhibaatooyin fara badan. hadhow toole dad baa diyaar u ah inay aniga dartay u dhintaan. bal caqliga noocaasaan la yaabay run ahaantii. yacni ummadda reer Somaliland gaar ahaan ummadda shacabka ku nool Hargeysa caqligooda lagu ciyaaraya. war sidee anigoo qurbaha ka tegay oo dalka u tegay dharag dhacsi oo weliba iska sii hormariyo eri hadday kumanaan ama boqolaal dartii u dhiman weydo oo baritoole aniga xabadda iga bilaabmi weydo anigoo caynkaa u hadlay, sidee baa adigu caqligaaga aad aniga iigu dhiman kartaa? wanaagaagaan doonayaa mise xumaantaadaan rabaa? qofka bini'aadanka hadduu wanaag waday, uu shacab gargaari jiray, oo ummad uu garab taagnaa, uu dadkiisa isku hayay, uu ahaa nin mar walbaba dalkiisa iyo dadkiisa garab taagnaa, haddii khalad lagu xidho waa loo mudaharaadi karaa. laakiinse nin u yimi magaalada Hargeysa inay isaga fidna ka dhex bilaabato oo dartiis loo dagaalamo, nin u yimi caqliga ku odhanaya u dagaalano u dhimo, run ahaantii aad baad u liidataa. adduunka lama arag dad noocaa u dhaqma, lama arag. laakiinse Somaliland waa laga helaya dad noocaas u dhaqmaya. yani caqliyadaas anigu waan u qaadan laayahay. yani isma balihiba maanta intaad halkan soo fadhiisato tiraahdo war aniga Hargeysa u soo socda, anigoo weliba dowladdii xukuumaddii cid walbaba aflagaadeeyey, war Hargeysaan u soo socdaa, dartayna waa inaad u dhimataan. hadday dadku taa asmacayaan ay maqlayaan ay dartay u dhimanayaan, run ahaantii waxaad tihiin dad aad iyo aad caqligooda u liitaa tihiin. anigu hal mid baan idinkula dardaarmaya, ama hal mid baan rabaa fariin inaan inii diro. shalay waxa Hargeysa ka dhacay maysan ahayn wax aad u fiican. waxa shalay Hargeysa ka dhacay waxaa lagu tilmaami karaa dhoolatus qabiil baa lagu tilmaami karaa. warbaritoole haddii doorashada layna kaga guuleysto oo aynu ku soo bixi weyno dadkani qabyaalad darteed ama qabiil darteed ma inoogu dhimanayaan. waa la arkaa, way muuqataa, waana caddahay inaa baritoole u dhiman doontaan qabyaalad, inaa u dhiman doontaan. waanaad arki doontaan. siyaasigu waa baaster wey. ninka siyaasiga intuu dhibta ku geliyo ayuu isaguna wuxuu noqonayaa ka ugu horeeya ee airportka Hargeysa diyaaradda ka raaca ee wadamada dariska taga. adiguna waxaad noqonaysaa kan u horeeya ama dhibtaas uu uga tegay siyaasigu ku dhinta, ama dhibtaas waxa weeye dhex joogaad noqonaysaa. ninka maanta isleh ama cirra ama Muuse Biixi baa ma garanaysaay aad difaacaysaayo, ma difaacaysid. ee iska ilaaliya siyaasiyiinta baastiriinta ah. anigu waxaan kula talinayaa war dalkan ninkii ku guuleystaba baritoole shacabka loo tumo. haddii kale noqda kuwo intaad siyaasiga amarkiisa uu siyaasigu intuu idinku shubto uu idinku guuro, kuwo uu baritoole dhibta intuu uga tago isaguna wadamada dariska. maanta Muuse Biixi iyo cirro soo lama laha, waa laba nin oo istagaasho soo lama laha. wallaahi baritoole waxaa arki doontaa hadday dhibaataba dhacdo dalka ka dhacdo, waxaad arki doontaan cirro iyo Muuse Biixi oo aad sabab ku kulmay ama meel kale ku kulmo wada qoslaya, idinkuna aad dhibaatadii ku jirtaan ay arki doontaan. caqligeenu hayda shaqeeyo. war dalkan idinkaa iska leh, dalka siyaasi iskama laha. dalkan idinkaa iska leh. siyaasigu baritoole waa ka dhoofaya, laakiinse cidda ay dhibta ku hadhi doonto waa adiga weeye. markaa dan waxay kugu jirtaa markaad tahay qof shacaba oo meel uu cararo aan lahayn oo dalkaas uu isagu iska leeyahay. markaad tahay ka fakir danahaaga keliya toon, ka fakir ammaankaaga iyo waxay adiga dan kugu jirto. ee ha ka fakirin war ninkan sidaad kursi ku saartaa.
ka fakar cidda adiga wax kuu qabanaysa ha ka fakarin wax kale aad baan